السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام يا جميع هنتين به أصحاب تقاليقة ميل والبوعات شوكتان إيميل والبوعات كي ويدين سو قارية به سوين أيان إدين السلام يا وصاحبك حسين شامع عارشان يا ناد مركو هره أترنتي وناكسنتين إسلام مركاسنا أد سفي عن وجود بالدكتين معلمه حرية ده أو أين معلمها نودان رنتي أين كوتشرني inta kadib waxaan rabaa maanta inaan halkan ku soo gudbiyo barnaamij runtii muhiim ah oo dhinacyo badan runtii taaban doona laakiin ahmiyadda ugu weyn ama tayrolka uu yahay waxa loo yaqaano maxaa ka iman kara ama maxay tahay runtii qatarta ka dhalan karta hadii looga guuleysto xilka tartanka madaxweynenimada mudane maxamed cabdullaahi farmaajo وبرنامج runtii aan rabo inaan shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku xiran bartaydan Facebook iyo waliba YouTube-ka oo aan ku soo daray barnaamijyadeyda hadda ka dambana aad YouTube-ka aad ka daawan doontaan hadii aad magacayga qortaan oo ah runtii Xuseen Jaamac ama ciwaanka meesha ku qoran ee uu leeyahay video-gana aad kala socon kartaan bartayda YouTube-ka barnaamijka inta aanan guda gelin ayaa waxaan doonayaa inaan marka hore horta idin sheego in programyadii aan sameyn jiray ee arrimaha siyaasadda ay runtii muhiim noqotay inaan bal horta ciwaan u sameeyo title ah si dadku ay markaa u aqoonsadaan barnaamijka halka uu marayo iyo waliba numberna aan ku daro tusaale ahaan oo kaleeto waxaan barnaamijka aan u bixiyay maxaa mudan maanta maxaa mudan kabacdina waxaan ku dari doonaa title-ka iyo waxa aan ka hadlayo magacan waxaan runtii aan rabaa inaan siiyo credit-kiisa ama qofka soo curiyay dhalinyarada Soomaaliya oo runtii mahad oo bokor la yiraahdo ku nool dalka Djibouti aan u maleynayo inuu markaas yahay awalal Djiboutiana maalin ayaan soo weydiiyay asxaabtayda qaaliga ah in bal horta magac la ila raadiyo isla markaasna aan barnaamijka u sameeyo magac inkastoo waxaan ka hadlo ay yihiin inta badan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya haddana sababta aan magaca noocay u doortay oo aanan magaca ugu darin arrimo siyaasadeed iyo waliba waxyaalo ama erayo muujinaya topic aan ka hadlay siyaasadda ayaa waxay tahay in marka qaarkood ay iman karto in laga hadlo arrimo aan siyaasad ahayn isla markaasna arrimo kala duwan laga hadli karo taasina aanan runtii ku soo koobin barnaamijyadeyda siyaasad kaliya waxyaalo badan baa laga hadli karaa oo u baahan in markaasi bulshada laga wacyigeliyo ama laga hadlo taasoo marka waxay qasbaysaa inaan magaca aan u bixinayo barnaamijka uu soo ku koobnaanin kaliya siyaasadda marka hadda wixii ka dambeeya barnaamijkeenu wuxuu yeelan doonaa ciwaan ama title la yiraahdo maxaa cusub maantayto ama maxaa mudan maantayto inta kadib barnaamijku waxaan ku soo qaadanaynaa maantayto sida aan horay idinku sheegayba title-ka ah qatarta ka dhalan karta hadii madaxweyne farmaajo laga guuleysto waxaan ogahay inaad markii aad inta maqasheenba ay markiiba maskaxdiina ku soo dhacayso muxuu farmaajo kaga duwan yahay dadka Soomaalida maxay tahay qatarta ka dhalan karta hadii farmaajo laga guuleysto farmaajo miyuu ka duwan yahay kuwii hore oo laga guuleystay maxaa ka dhashay oo qatar waana su'aalo runtii aan isleeyahay dadku way isweydiinayaan si barnaamijkan loo fahmo muhiimadda uu leeyahayna haddaan su'aalaha laga jawaabinin in la guda galo marka qatarta ka iman karta in farmaajo laga guuleystaa waxaan islaahay waxay noqonaysaa unfair ama waxay noqonaysaa waxaan cadaalad ahayn waxa muhiim ah in dadka aan la hadlayo aan mar walba xataa kuwa iga fikirka duwan aan ku qancin karo aragtida aan doonayo in halka ku soo gudbiyo waxaan rabaa marka hore horta inaan ka jawaabo why farmaajo hadii laga guuleysto ay qatar u imaanaysaa why what is the point inta aan gelin dhawaq baan maqlayaa waa 4 July caawa Mareykanka dhan baa laga dabaaldegay waxa aad maqlaysaan qaylinaya waa dabaaldegoodii anaguna kayagii uu soo dhamaaday koodii wataan marka ka raali ahaada waxyaalaha noise-ka ee buuqa ay banaanka ka yeeraya ee dadka oo dhan dhaga tiraya laakiin waarin ay markaasi ku dabaaldegayaan hadii marka aan u laabano barnaamijkeena muxuu farmaajo uga duwan yahay dadka why gaygana uu soo special u yahay oo hadii marka asaga laga guuleysto ay dhibaato imaanaysaa maadaama aan sheegay qatar ka iman karta inay jirto hadii madaxweyne farmaajo laga guuleysto waxaan rabaa inaan idin sheego laba arrimood ayaa jira oo runtii madaxweyne farmaajo ka duwaya dadka kale ee siyaasiyiinta ah
ee aynu aragnay dadka aynu arag ee siyaasiyiinta ee hadda xilalka raadinaya dadka ma garanayno waxay noqon doonaan ama way ka fiicnaan karaan maxamed madaxweyne farmaajo ama way ka hoos mari karaan ama way la sinaan karaan intaas baa suurtagal laakiin markii aan madaxweyne farmaajo aan asaga ka hadlay waxaan la barbar dhigayaa dadka xilalka soo qabtay dadka la tijaabiyay dadka xilalka soo qabtay dadka aynu afkaartooda iyo mabaadi'dooda iyo go'aan qaadashadooda aynu garanayno ayaa la barbar dhigaya laakiin qof aan aqoon adigana Allah ka dhigay kulan barbar dhigaya waayo lama testi garin qofka lama tijaabinin waana cadaalad darro in qof aan la tijaabinin marka la barbar dhigo qof la tijaabiyay madaxweyne farmaajo marka sababta uu uga duwan yahay ama waxyaalaha uu uga duwan yahay dadka kale ee siyaasiyiinta ee xilalka soo qabtay ayaa waxay tahay laba waxyaalood waxaan rabaa inaad attention-kiina aad siisaan ka dibad garaysaan aragtidiinana aad cabirtaan kow madaxweyne farmaajo waxaan is leeyahay runtii wuxuu haystaa xirfad siyaasi ayuu haystaa maxaan ka wadaa marka xirfad siyaasi waxaa jira runtii wax walba oo caalamkan la sameeyo dad waxaa jira runtii xirfad u leh ayaa jira xirfadu waa wax khaas ah adigu aad ama iskuul u gashay ama waqtigu uu ku baray oo aad dadka kale aad inta badan uga fiican tahay ee aan xirfadaasi aqoon tusaale uga haboon haddii aan teleefankayga meeshaan ka soo qaado teleefankan aan gacanta ku hayo nin baa sameeyay teleefankan ninka teleefankan sameeyay haddii bukun aqoon-yahan loo yeero oo waxa loo baahan yahay inay teleefan in la sameeyo ay tahay ninka teleefankan sameeyay kunka qofba wuu ka fiican yahay waayo waxa la qabanayo ayaa waxay tahay in teleefan la sameeyo xirfadiisii ayaa la gala qofka marka waxa uu asagu xirfada u leeyahay dadka kale xirfada u lahayn wuu kaga fiican yahay mar walba waa caadi arrintaada waxaan islahay marka madaxweyne farmaajo xirfad ayuu u leeyahay siyaasadda iskuul buu aaday waqti buu ku bixiyay wuu ka shaqeeyay xirfada uu siyaasadda u leeyahay nimankii hore ee xilalka iyo siyaasadda Soomaaliya runtii soo hayay wuu kaga fiican yahay siyaasadda waayo xirfad buu leeyahay skill buu leeyahay taas waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa weeye madaxweyne farmaajo wuxuu Soomaaliya ku furay dagaal ayuu Soomaaliya ku furay ama arrimo siyaasadeed ha ahaato ama arrimo runtii inuu galo ay qasab ahayd markii loo fiiriyo arrimaha dawladnimada Soomaaliya ha ahaato midda dambe ayaan ugu door bidaya xagga siyaasadda kama fiirinayo laakiin xagga wanaaga ayaan ka fiirinaya wax walba markii aad fiirinayso dhanka wanaagsan ayaa laga fiiriyaa madaxweyne farmaajo marka Soomaaliya wuxuu ka siibay boqolaal musbaar ayuu ka siibay oo ay shisheeye iyo reer galbeed iyo madow iyo carab iyo balaayo dhan ay Soomaaliya ku mudmudeen ayuu ka siibay siibitaankii uu ka siibay dagaal ayaa ka dhashay ولينا الصومالية وحكتاجن دجال شيء وحكتاجن مد جدها وحكتاجن مد بدأ وحشر كوا بدن أول العليديو دجال كاس ومدحوين أسقوا وبالعبي عد أسقى كفي على مهليو هذا كيس آمن فيري دجال كاس سيدي سبع حكوا ناكسن عد عيدوا بالوضع يا دجال كذا ما يشتري كرتا وعن إسلاه مركز دجال كهذا ومدحوينه أفرت السنة إلى صوت عفي وبالعبي haddii afar kano sanad dambe karo la siiyo dagaalkaasi waa la soo gabagabin karaa laakiin dagaalkiyo middle maraya ama dhexda maraya in madaxweynuhu uu xilka ka taga ama xilka looga guuleystaa khatar culus ayaa ka iman karta waayo waxay la mid tahay ciidan dagaal ku jiray oo dagaalkii aad guuleysatay ama meel dhaxa uu marayo oo dagaalka ciidankii aad kala soo baxday ama ciidankaaga uu jabay maxaa ku dhacaya dabcan waxa ku dhacaya in lagu dhibaateeyo ku dhacaysa labadaas sabood markii aan fiiriyo xirfadda iyo dagaalka siyaasadeed oo madaxweynuhu intii uu joogay dalka ka bilaabmay waxaan ka hadlayaa faragelinta shisheeyaha Kenya Imaaraat that waxyaalahaas ka hadlayaa labadaas arrimood markii aad fiiriso madaxweyne farmaajo waa qasab ama dalkeena muhiim buu u yahay inuu 4 sano kale sii hogaamiyo si arrimahaasi looga gungaaro dagaalka iyo arrimaha la midka ah oo ay dhinac ugu dhacaan si badda ay dhinac ugu dhacdo si arrimaha Ethiopia taagan dhinac ugu dhacaan detail baan ka bixin doonaa qaybaha dambe taa marka waa qaybtii ugu horeysay oo aan doonayay way farmaajo kaligiis ee qatar uga imaanaysa haddii xilka looga guuleysto waxaan rabaa marka inaan u dhaadhaco saamaynta iyo qatarta ka imaan karta haddii madaxweyne farmaajo uu sanadkan xilka Soomaaliya looga guuleysto
xilku waa lagu kala guulaysan karaa laakiin sababta aan barnaamijkan maanta idin la wadaagi ayaa waxay tahay waxaan doonayaa in oday dhaqameedyada dhalinyarada warbaahinta haweenka cid walba oo Soomaali ah oo interest garanaysa ama xiiso ay ku hayso arrimaha siyaasadda iyo kuwa aysan ku hayninba inaynu sanadkan u istaagno inaynu isha ku hayno inaynu ka fiirsano cidda aynu mustaqbalkeena siyaasadeed aynu ku aaminayno inaynu ka fiirsano ayaynu doonaynaa waa barnaamij aan isleeyahay dadka Soomaalida ah ee aragtida nooca kala ah kale ama aragtidoodu ay gaaban tahay ee aan arki karin waxa soo socda inaan kaga diga ayaan doonayaa waa la iga fikir duwanaan karaa laakiin macluumaad badan baan meeshan ku hayaa oo aan waxa ku sabood garanayo kaliya fikirkayga waxba kuma sabood garayaan qatarta iyo saameynta ka imaan kartaa saddex arrimood ayaa ugu waaweyn laakiin way ka badnaan karaan saddexdaas aragtino idin sheegi doono isha ku haya kana digtoonaada waxa Soomaaliya ka soo socda haddii madaxweynuhu uu soo laabto muxuu qaban karaana barnaamij kalan ka sameyn doonaa oo aan cadiifad iyo qiira jabaan iyo basbadis iyo farmaajo hadduu soo laabtana Soomaaliya oo dhan de hamar umu bedeli doono dalalka waaweyn hormar sida waxba kuma dhismaan waqti bay qaataan in 30 sano waxaynu burburinaynay in la soo celiyaa muddo badan bay qaadan doontaa laakiin waxyaalaha aan huba hadduu soo laabto inuu qaban karayo ama aan xogahooda hayana mar kale idinkaga sheekeyn doono saameynta ay leedahay haddii madaxweynaha xilkan looga guulaysto iyo waxa ka dhalan kara saddex arrimood ayaa ugu weyn kow arrimaha ciidanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan dhowr waxyaalood idin sheego kow nimanka reer galbeedka ah ee qaramada midoobay iyo beesha caalamka ee Soomaaliya ku bixiya dhaqaalaha iyo waliba ciidankeeda sabood garaya waxaa jiray limit ay u sameeyeen ciidanka Soomaaliya limit waxaa la yiraahdaa cadad baa loo sameeyay waxaa la yiri 18,000 askari ka badan looma tababari karo ama mushaaraadkooda ma bixin karno ma la ogola in 18,000 askari ka badan ay ciidanka qaranka Soomaaliya ay yeeshaan wax walba ha ahaadaan askartooda dhammaan kala isku dardaro kuwa dharcadka ah kuwa militariga ah kuwa booliska ah cid walba 18,000 limit ah ayaa la saaray Soomaaliya sababta loo saaray ajendayaal siyaasadeed oo weyn baa ku jira laakiin ayagu waxay ku soo gabanayeen waxa ugu weyn waa arrimaha dhaqaalaha lama ogola ay yiraahdeen in 18,000 askari ka badan Soomaaliya ay yeelato mana sabood garanayno madaxweyne farmaajo imaanshii uu yimaaday ciidankii wuxuu jabiyay numberka uu jabiyay dagaal dheer isqabsi dheer sharciyad dheer waxyaalo badan oo biyaha hoostooda ka socday kadib madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay in siilka la jabiyo in qufilka Soomaaliya lagu jabiyay laga gooyo si loo helo dhalinyaro badan iyo ciidan badan oo Soomaali ah oo dalka xoreyn kara arinta ayada runtii lama oga ilaa hadda numberka dhabta ah oo ciidanka Soomaaliya ay yihiin laakiin qiyaasta aan isleeyahay waan saari karaa ugu yaraan waa ilaa 50,000 ciidan ku dhow ayuu madaxweynuhu sameeyay 4 sano oo dalka u joogay ciidan hore oo joogay iyo ciidanka lagu daray iyo ciidanka imaan doona minimum meesha ugu yar oo aan saari karo waa 50,000 oo askari weyn meequu sameeyay almost 2 jeer 2 laab ka badan ayuu madaxweynuhu ku daray ciidanka Soomaaliya jooga waxay haystaan qalab casri ah waxay u badan yihiin dhalinyaro waxa ku jira kuwa hore oo askar aha oo xataa maleeshiya baadi aha waxa ku jira dhalinyaro dambe waxa ku jira kuwa dhexe waa ciidan aad u fara badan oo Soomaaliyeed waxay ka kooban yihiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxay joogan deegaamo kala duwan oo badan waxay haystaan hub aad casri ah oo dalal horumarsan ay sameeyeen oo ay Turkidu ku jirto iyo dawladaha kale ee reer galbeedka ciidankaas Soomaaliya ah ee 50,000 lagu qiyaasi karo Soomaaliya ku faafsan yihiin waxaad qiyaastaa haddii madaxweynaha dalka looga guulaysto talada qatarta ka imaan karta hubka intaa la eg iyo ciidanka intaa fara la eg oo hogaankii sameeyay uu meesha ka baxa waxaad qiyaastaa in mushaarkii loo waayo qiyaas ilaa hadda tactiga ay dawladdu u bixiso arrimaha mushaaraadka waa tactic very mataqaana complicated in la fahmo xogta dhabta ee arrimaha dawladda ayaa ku shaqule ma doonayo xataa haddaan wax ku ogaa inaan wax ka sheego laakiin tusaale ayaa intusaya kontanka askari ee hubka casriga ah haysta waxaad qiyaastaa in loo waayo mushaaraad ama in meeshii markuu madaxweynihii
ama dowladdii samaysay ee isku keentay ay meesha ka baxdo qatarta ka iman karta kontonka kun ee askari ee hubka culus haysta waxaad qiyaas waxyaalaha ugu badan oo runtii la isweydiinay waxay tahay hubka haddii ay waayaan mushaaraad xaggee geyn doonaan ma al-shabaab bay siin doonaan mise qabaa'iladii ay ka yimaadeen ayay kula laaban doonaan labaduba waxay qatar ay ku tahay marka dalka Soomaaliya iyo dawladnimada iyo dadka Soomaaliyeed qatar bay ku yihiin ciidanku waxaa la yiraahdaa marna waa gaashaan ka celiya cadawga marna waa baazin adiga gubi karaya hadii uu halaabo hoggaankiisa waxaad qiyaastaa ciidankii kooxda yar ahaa ilaa 200 ahaa ee magaalada Muqdisho soo galay ee maleeshiya beeleedka ahaa qalqalkii ay ku sameeyeen dawladnimada Soomaaliya sida ay ummadda moraalkoodii u dileen iyo waliba wixii ay abuureen intii ay la ekeed qiyaas 200 ilaa 300 askari bay ahayd waxaad qiyaastaa 50 kun oo askari oo hoggaankoodii uu qalqal ku soo biirmay ama wax si ka noqday imisaa faka karto al-shabaab ka iibin karta imisaa qabaa'il ku laaban karta imisaa dawladaha shay ka iibin karta waxyaalo badan baa ku dhici kara qatar weyn baa halka ku jirta qatartaasi kaliya ma ahane waxa ku sii hoos jira hadii ay sida dhacdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ka magan galnay inay musiibada dalkeena iyo dadkeenaba ku dhacdo laakiin waxa ku sii hoos jira inay ka faa'iideystaan ciidamadii AMISOM ee 12 kun ah ee la doonayo in Soomaaliya laga daadgureeyo dhamaadka sanadkan aynu ku jirno imisay numberkoodu noqon doona hadda waa 12 laakiin hadii ay sida dhacdo ugu yaraan 50 bay ayaguna noqonayaan waa chance la filayo in marka laga faa'iideysto AMISOM waxay dalka uga bixi kartaa ciidanka Soomaaliya oo israac ah waxay ku soo badan karaan oo dalka ku joogi karaan ciidanka Soomaaliya burbura waa laba shaqo oo opposite isku away waxyaalaha sidoo kale runtii ciidanka ka iman karaya waxa kamid ah inay markaasi ay xataa sameeyaan jidgooyooyin iyo arrimo la mid ah inay maamul goboleedyada qabaa'ilka loo kala xiray ay xoojiyaan soo qodobka koobaad qatarta ka iman karta hadduu madaxweynaha meesha ka baxo waa arrimaha ciidamada maxay noqon doonaan 50 kun ugu yaraan ciidan hubeysan oo Soomaaliya jooga oo mushaarkoodu uu wax si kala noqon karayo qatarta ka iman karta maxay tahay dalka oo dhan way gubi karaan dalka oo dhan way badbaadin karaan arinta labaad waxa weeye waa siyaasadda arrimaha dibadda sidaad ogsoontiin ba siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya isbedel weyn ayaa ka jira dagaal xoog badan dawladdu way gashay haddana way ku jirtaa mustaqbalka dhowna way gali doontaa saddex dawladood ayaan doonayaa inaan farta ku fiiqo arrimaha ka iman karaya markii laga hadlayo arrimaha siyaasadda dibadda markii laga hadlayo ko waa dawladda Imaaraadka Carabta runtii Soomaaliya kaabiga u joogtaa way daawanaysaa siyaasadeeda haddadan waxa lagu sameeyay gacan bir ayaa lagu qabtay waa la iska turjiyay laakiin way soo laaban kartaa haddii ay soo laabato dhibaatada ay inoo keeni karto way badan tahay laakiin waxyaalaha aan ka taaban karo waxaa kamid ah in dekadii sida Berbera iyo Boosaaso ay gacanteeda ku soo wareegaan isla markaasna Soomaaliya ay soo galiyaan lacag fara badan oo xaraan ah siyaasadda Soomaaliyana ay qabaa'il iyo maamulo iyo balaayo u kala qaybiyaan ayagoo lacagtooda isticmaalaya waxay kala sameyn karaan nimankaasi in ay dekada hor leh sida kuwa Kismaayo Marko Muqdisho iyo kuwa kale la mid ah ay lacag ku iibsadaan waa hadii ay yimaadaan hoggaan ama siyaasiyiin runtii dulaalin hadday yimaadaan xilka way cidda imaanaysa ma naqaan waxaynu ka soo qaadanaa bal kuwa xun kuwa wanaagsan hadday yimaadaan dabcan waxyaalahaas oo dhan way wanaagsanaanayaan soo marka taasi waa mid koobaad arrimaha siyaasadda waxa loo yaqaano siyaasadda arrimaha dibadda ko waa Imaaraat labo waxaan rabaa inaan idin sheego dawladdan Ethiopia lidaado oo hadda aynu dariska nahay ayaan rabaa inaan wax yar idin kaga sheego Ethiopia hadda wali anaga ma saaxiibin dadku waxay u fahmeen in Ethiopia Soomaaliya ay hadda saaxiib dhab noqdeen laakiin that's not true cidda saaxiibka ah waa Abiy Ahmed iyo Farmaajo ayaa saaxiiba Farmaajo meesha hadduu ka baxo heshiiskii Soomaaliya Ethiopia ee meesha hadda ku jira is ixtiraam kale inuu meesha ka baxa aad macquul tahay
waxaa jira xogo badan oo aan indirectly baan u helay oo arrimaha la xiriira muddo badan baa waqti ku bixiyay cidda saaxiibka ah waa labadaa nin baa saaxiiba inay saaxiib noqdaanna dabcan interestigooda iyo shaqada ay hadda ku jiraan ayay ka dhex arkeen inay saaxiib noqdaan laakiin cidda saaxiibka dhabta ah ma aha Ethiopia iyo ma aha Soomaaliya ma aha shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed oo anigu hadda aan ku jiro Ethiopia dadka la yiraahdo waxaan ka aaminsanahay dad cadow aan ka aaminsanahay ayaguna sida ay si kamida ay naga aaminsan yihiin waxaad ogtihiin in nimankii Tigreega ahaa ee laga adkaaday ay iibinayaan dacaayado aad u fara badan oo ka mid tahay in ciidamada Soomaaliyeed ay ka qayb galeen dagaalkii lagu jabiyay waxa la yiraahdaa ay ku jabiyeen ciidamada federaalka Ethiopia ee Tigreega ku jabiyeen dacaayadaas macnaheedu waxa weeye Soomaaliya ayaa nagu soo duushay haddii marka mustaqbalka dambe xataa ay gacanta kula wareegaan nimanka loo yaqaano Tigreega Ethiopia cadaawadaasi iyo dagaalkaasi meel inoo yaala inuu u digtoonaano sidii aynu isaga dhicin lahayn aynu ka shaqeynaa arrimaha ku jirta way soo marka cidda saaxiibka ah oo hadda saaxiibka ah oo inta ay kuraasta joogaan saaxiibka si ahaan doona waa labada madaxweyne way laakiin su'aal baa dul saaran haddii farmaajo meesha ka taga Abiy Ahmed sidee buu Soomaaliya ula macaamili doonaa waxaa jira xogo sheegaya in maxaa la yiraahdaa Abiy Ahmed uu aaminsan yahay inay ku dhax dhuumaalaysanayaan waxa loo yaqaano Soomaaliya niman siyaasiyiin oo Soomaali ah oo xiriir dhow la leh Tigreeg waxa suurtagal ah haddii farmaajo meesha ka baxo in faragelintii in maxaa la yiraahdaa dhaxgalkii iyo xumaantii ay Ethiopia Soomaaliya ka dhaxwaday arrimo la mid ah oo Abiy Ahmed ku dayo asagoo ka baqaya inay markaas Tigreeda ay iska soo abaabulaan gudaha Soomaaliya arrintaas arrin jirta weeye waan idin sheegayaa arrinta saddexaad oo meeshan arrimaha siyaasadda waxa loo yaqaan arrimaha dibadda aan uga hadlayo oo qodobka labaad ayaa waxay tahay waa dawladda Kenya saddexda dawlad baa inoogu daran waa Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia mustaqbalka wax ka iman kara haddii farmaajo meesha ka tago iyo dawladdan Kenya ee maanta inagu haysata borderka Soomaaliya saddexda dawlad farmaajo meesha hadduu ka baxo maxay xaaladoodu noqon doontaa su'aal weyn baa saaran waxaana runtii xaqiiqo ah in saddexdaba ay maanta ito banaanka lagu riixay Ethiopia inuu madaxweynuhu heshiis la galay laakiin heshiiskaasi uu meesha ka bixi karo hadduu soo ka baxo Kenya in aynu dagaal la galnay oo maanta ito ay banaanka ay naga joogaan oo ay Kismaayo ay ku kooban yihiin iyo inay geda duqeeyaan oo ay si yaraanayso saameynta ay Soomaaliya ku lahaayeen Imaaraadka sidoo kale dekadii ay processyada ka wadeen iyo faragelintii farada badan ee Soomaaliya ku hayeen gacan bir ayaa lagu qabta saddexdaas dawladood haddii farmaajo meesha ka baxo qatar weyn baa ka iman karta ilaahay baa yaqaan wixii ka imaanaya laakiin qatar baa ka iman karaysa tawa qodobka labaad ee siyaasadda arrimaha dibadda ciidamadan ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda saddex dawladood baan tilmaamay laakiin way ka badnaan karaan reer galbeedka waxa ma taabanayo way fara badan yihiin carabta kale waxa ma taabanayo arrinta ugu dambaysa oo saddexaad oo haddii farmaajo xilka uu waayo ama looga guulaysto qatar iman karta waxay tahay waa kalsoonida shacabka Soomaaliyeed kalsoonida shacabku waxa ay la socotaa dawladnimada haddii shacabku uu kalsooni helo in dawlad la helayo shacabku dalka iyo dawladda way la shaqeyn karayaan ciidankii baa la qoranayaa oo dhalinyaro yar oo ubax ah ayaa ciidanka qoranaya oo soo galaya oo proud ku ah maxaa keenaya kalsoonida baa kor u kacday in Soomaaliya maanta looga dabaaldego meel walba calankii oo Soomaalidu aad mood inay hadda xurriyadda qaateen maxaa keenaya waa kalsoonidii baa soo kacday inaynu aragno dawladdeena oo wax diidi karaysa wax noo difaacaysa ciidamo tababaranaysa wax isku dayaysa ayaa shacabka kalsoonidiisa kor u soo qaaday haddii marka kalsoonida shacabka ee dawladii ay kalsoonida ku qabeen oo ay u arkeen ay tahay dawladda dhibaatada ka saari karta ay meesha ka baxdo waxa xaqiiqa in kalsoonida shacabku hoos soo dhacayso hadday hoos soo dhacdo kalsoonida shacabka maxaa ka dhalan karaya saddex waxyaaloodba Soomaalidu way ku iman kartaa haddii farmaajo meesha uu ka baxo kow waxa ku iman kara quus in dawladnimada laga quusto way iman karaysaa oo qof walba Soomaali ah oo anigu aan ku jiro
oo adigu aad ku jirto hebelna ku jiro inay ka qustaan in Soomaaliya ay dawladnimo dambaba ay ka dhalato waayo rajada hadda aynu leenahay ama aan iraahde waxa farmaajo uu dalka keenay ma aha inuu dabaqyo inuu isbedel 100% farmaajo ma keenin laakiin hal wax uu keenay muxuu keenay rajo keenay farmaajo waxa rajo la yiraahdo ayuu farmaajo keenay haddii rajadii meesha laga qaado inta yar hadda aynu iman muuqataa meesha ka bixi karaysaa soo marka in kow ay dadku quustaan oo dawladnimo ka quustaan labo in dhalinyaradii tahriibi jirtay ay dib u bilowmaan oo dalka doonba halka ku dagtay oo 400 wiil ama 400 dhalinyaro Soomaaliyeed waday dad ba xagga laga soo qabto tahriibayay wixii oo dhan hadda way iska yaraadeen dhalinyaradii waxaad muddaeen noloshii jeclaadeen meel walba xarkasa sawirro qurux badan iyo TikTok iyo waxa loo yaqaano markay u bataan waxay gaarayaan Turkiga ka bacdina way soo laabanayaan waxyaalahaas oo marka waxa ay muujinayaan in dadka hamigooda iyo niyadooda iyo kalsoonida ay dawladnimada ay ku qabaan inay soo laabanayso finally marka suurtagal in niyada umada oo maxaliyada burburta inay ka timaado wax loo yaqaan kala qaybsanaan iyo division haddii ciidamadu ay qaybsamaan dadku ay niyad jabaan waxyaalaha ugu badan oo iman karaya oo dadku la filaya waxay tahay inuu kala qaybsanaan fara badan ay ku timaado bulshada soo saddexda qodob ee aan dul istaagay markii aad mid walba waqti siiso waxaad arkaysaa haddii ay dawladda hadda jirta ee madaxweyne farmaajo oo madaxweynaha ka yahay ay meesha ka baxdo inay saddexda qodob ay iman karaan iyo kuwa kale ka badan laakiin waa saddexdan isleeyahay way ugu muhiimsan yihiin wayna ugu saameyn badan yihiin waa ciidanka oo meesha ka baxa dhibaatana keeni karaya waa siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladaha inagu xeeran sida Ethiopia iyo Kenya iyo Imaaraadka waxa ka iman karaya qatarta ka iman karta iyo kalsoonida shacab ee dhismaysa ee dawladnimada raadinaysa waxa ku iman karaya saddexdaas arrimood ayaan isleeyahay way ugu waaweyn qatarta ka iman karta haddii madaxweynaha oo meesha ka baxo maxay kula tahay adiga fikirkaaga in la wadaag haddii saad u aragto barnaamijkani uu muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed si looga digtoonaado si odaya dhaqameedyada xildhibaanada dadka Soomaaliyeed ee doorashada isha ku haya inuu muhiim u yahay dad u aragto fadlan la wadaag asxaabtaada kale ee Soomaaliyeed meel walba jooga si ay inoo daawadaan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo arrinta dhibaatada ah ay iman karaysa oo Ilaahay ka rajeynayo inaysan imaanin haddii ay dhacdo yaa mas'uuliyadeeda qaadaya cidda mas'uuliyadeeda qaadaysa maxaa ku dhici karaya oo waxaan ku soo koobayo waxa mas'uuliyadaas runtii aan islaahay waxay u taalaa number 1 xildhibaanada cusub ee labada aqal ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaga ayaa mas'uul ka noqon karaya inay waxaan dalka arinta noocaan oo kala ah oo dalka uu ka dhaco mas'uuliyadda ugu weyn ayaga ayaa qaadaya ayaga sida runtii oo ah xildhibaanada haddii aysan ka fiirsanin ama ay doortaan dad kale ee aan dalka samati bixin karnin waxyaalaha ugu waaweyn ayaga ku dhacay waxa kamid ah kow amnigooda qatar ayuu noqonaya waayo waxaynu ognahay dawladdan ka horeysay iyo dawladii ka sii horeeyba xildhibaanada dawladda Soomaaliya waa la leyn jiray tusaale dawladii Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo dhowr 20 xildhibaan ayaa la dilay qaab kala duwan ayaa loo dilay laakiin 4 sano ugu dambeysay waliba aanan maqal mana jiro hal xildhibaan ah oo runtii amni darro dhintay ma jiro ama la dilay labo dawladii hore mushaaradkoodii ayaa meesha ka bixi jiray ama marka qaarkood way waayay jireen dawladii Xasan Sheekh Maxamuud tusaale u soo qaadanayaaye 8 bilood ayagoon mushaar qaadanin ayay xilka ka dageen haddii marka ay dawlad kale oo noocaay oo kale ay doortaan waxa sidoo kale ku dhici doona inay xataa noloshooda ay soo saari waayaan ama ay mushaaradka xaq ay u leeyihiin xildhibaanada labada aqal ay markaasi waayaan finally awoodda xildhibaanada baarlamaanka hadda la siiyay ayaa meesha ka bixi doona waxaynu ognahay in dawladda madaxweyne Farmaajo ay xildhibaanadu noqdeen awoodda ugu dambaysa ee dalka ee loo laabanayo mar walbaba ay noqon doonaan dadka awoodda leh ee marka ayagu loo laabto haddii la isqabto cidda loo laabanayo inay sharci dejinta tahay caalamka oo dhan waa arrin ka jirta awoodda la siiyay oo ay maanta ay ku joogaan
oo aan lagu kala dirinin dowladihii horena markaa la kala diri jiray haddii madaxweynaha meesha uu ka baxana way ka baxaysaa ayagu markaa keliya inay mas-uuliyadda qaadayaan arrinta culayska ah ee timaada ee khatarta keeni karta keliya ma ahane saddex arrimood oo kale ayay xildhibaanada shakhsi ahaantooda ay ka dhaxli doonaan mustaqbalkooda haddii aysan ka fiirsan cidda ay dooranayaan sidaan idiin soo sheegay waa amniga waa mushaarkooda oo noloshooda ah iyo awoodda hadda ay haystaan intaa meesha way ka bixi doontaa xildhibaanadu marka waa inay iyaguna ogaadaan in dalka ay burburiyaan keliya ma ahane mustaqbalkooda iyo naftooda iyo sharciyadooda iyo amnigoodana way ku cayaarayaan waa haddii aysan ka fiirsan cidda ay dooranayaan inta ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii ahaa khatarta ka dhalan karta haddii madaxweyne farmaajo meesha uu ka baxo haddii aad fadlan u aragto mar kale in barnaamijkan uu muhiim yahay la wadaag asxaabtiina kuna soo dhawaada barnaamijkan noocaana insha allahu tacaala marar badan baynu soo dayn doonaa insha allahu tacaala waana xalqadii ugu horreysay oo walaalkii xuseen jaamac idinkaga tagaya sidaa iyo nabadino